Dowladda Soomaaliya ayaa dalbatay in meesha laga saaro jiritaanka kooxda beesha caalamka ee loo yaqaano C6+ oo qaabilsan arrimaha caalamka. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya oo loo diray wakiilka gaarka ah ee Xogayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan iyo dalalka ay khusayso ayay dowladda Soomaaliya ku caddaysay mowqifkeeda in la soo afjaro jiritaanka qaab dhismeedka C6+. Warqadan uu ku saxiixan yahay Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad ayaa waxaa lagu sheegay in qaab dhismeedka C6+ uu markii hore ku yimid duruufo siyaasadeed oo dalka ka jiray xilligii dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee kadib 2010 xilligaasoo hay-adaha dowladda ay curdin ahaayeen madax-bannaaniduna ay si weyn u koobnayd. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in duruufahaasi maanta aysan jirin loona baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo qaabka ay beesha caalamka ula macaamisho Soomaaliya. Wasaaradda ayaa si cad u sheegtay in Soomaaliya hadda ay tahay dal madax bannaan oo leh hay'ado dastuuri ah oo u shaqaynaya nidaam dimuqraadi ah oo kobcaya iyo himilo qaran oo cad oo ku wajahan horumar iyo xasillooni. Sidaasi daraaddeed, sii wadida C6+ ayay dowladdu ku tilmaantay mid duugoobay oo aan la jaan qaadi karin xaaladda siyaasadeed ee maanta ka hor imaanaya mabda'a isxilqaan iyo lahaanshaha qarannimada. Dowladda Soomaaliya waxa ay ugu baaqday dhammaan saaxiibada caalamka in ay xiriirkooda iyo iskaashigooda la yeeshaan Soomaaliya ay mariyaan qaabab rasmi ah iyo hay'adaha sharciyeysan oo ka turjumaya madax-bannaanida iyo horumarka ay gaartay dowladnimada Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa intaasi ku dartay in Soomaaliya ay diyaar u tahay wada shaqayn buuxda oo ay la yeelato saaxiibadeeda caalamiga ah, balse aysan aqbalaynin in lagu dhaqmo sidii marxaladdii ku-meel gaarka ahayd. Kooxda beesha caalamka ee magacooda loo soo gaabiyo C6+ ayaa la dhisay xilligii ay dowladda Soomaaliya ku jirtay ku-meel gaarka, waxaana ka mid ah dowladahaasi Mareykanka, UK, Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Itoobiya, Kenya iyo Sweden. Warqadan ayaa imaanaysa iyadoo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku jirto sanadkii ugu dambeeyay muddaxileedkiisa oo ah xilliga ay beesha caalamka culays ka saarto dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya. Dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa in muddo ah doonaysay in ay dib u hanato doorkeeda caalamiga ah iyo in ay si buuxda ula wareegto hagidda siyaasadda dalka, iyadoo hore uu u dalbaday in meesha laga saaro xafiiska siyaasadda ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in uu go'aanka dowladda Federaalk Soomaaliya u yimid kadib markii isfahan waa sii kordhaya uu u dhaxeeyay madaxtooyada Soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah dalalka beesha caalamka sida Mareykanka iyo Ingiriiska. Waxaa hadda socota qabanqaabada shirka qaran ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay, kaasi oo la yeelanayo xubnaha mucaaradka xilli beesha caalamka ay cadaadis saarayso dowladda Soomaaliya sidii kulankaasi uu ahaan lahaa mid miro dhal ah. Sidoo kale waxaa muuqata in dowladda Soomaaliya ay sanadihii ugu dambeysay aad uga soo kabanaysay in ay samayso horumar dhinaca dakhliga ah, maadaama ay canshuuraha ay qaado ay yihiin kuwa aad u tiro badan. Sigri Maxamed Salaad, Somali TV, Muqdisho. IBS Bank waxa uu ku hayaa kaarar caalami ah oo aad kala bixi kartid lacagtaada adduunka meel kasta oo aad tagto. Waana bangiga kaliya ee bixiya adeega Visa Card guud ahaan dalka. Noocyada Mastercard ee ka helaysa IBS waxa ka mid ah Classic Mastercard iyo Well Elite Mastercard. Noocyada Visa Card ee aad ka helaysa IBS na waxa ka mid ah Classic Visa Card iyo Infinite Visa Card.